waa halka laga dhisi doono saylad xoolaha lagu qalo ay yeelan doonto degmada Xudun ee gobolka Sool taasoo ay si wada jir ah u dhagax dhigeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland iyo madaxda dhaqanka degmada xildhibaan Kaysa Cawil Boobe oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland ayaa gaaray degmada Xudun ee gobolka Sool iyo deegaano hoos yimaada mas'uuliyiintan ayaa intii ay ku sugnaayeen degmada Xudun dhagax dhigay sayladda xoolaha ee degmada Xudun oo 33 sano kadib la doonayo in dib loo furo kadib markii uu burbur soo gaaray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlay dhagax dhigga ayaa ka mahad celiyay dadaalka ay dawladdu ku bixisay hirgelinta dhismahan madaxweyne ku-xigeenkana waa u mahad celinaynaa dhammaan waxaanu leenahay cid allaaliya ciddii ka soo shaqaystay waxaanu leenahay jazaakallaahu khayr waanu u baahannahay waxaanu codsanaynaa sariibadda oo dabadayda ka muuqata in naloo dhiso sariibad ku filan magaalada oo magaaladu waa magaalo weyn oo degmo ah oo qadiima waxa ganacsiga hoose sariibada iyo qudaartu way isku xidhan yihiin ilaa dhowr boqol oo qof baa waxaan ka shaqaysta sariibadii ku filan lahayd baan rabnaa marka aad baan ugu mahad celinaynaa wixii wax qabada ee horumarina ee degmada loo wadana waanu soo dhaweynaynaa meel kasta ay ka yimaadaan waanu soo dhaweynaynaa tanina insha Allah taala noqon mayso hay'adii ugu horeysay hay'adaha oo dhan waxaanu leenahay waa adarkasan sariibadaha 30 sano duusanaa iyo 40 sano duusanaa dhul badan oo kale oo burbursan baa jira ama sariibadii ha noqoto ama meelo badan oo public ha noqoto waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa khayriga ahba in ay soo caawiyaan dadkan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hay'adaha international iyo kuwa localka aba waxaanu ka codsanaynaa degmada waxyaalaha wax qabadka ay u baahan tahay haday noqon lahay publicka waxyaalaha ay u baahan yihiin sayladii kale ee weyneed ee xoolaha lagu iibin jiray taasina waa dunsan tahay inay soo caawiyaan dadka magaalada Sucaad Cabdullaahi Galow oo kamid ah qurba joogta deegaanka ayaa ka warbixisay muhiimadda ay bulshada degmada u leedahay in la dhiso sayladan muddo ka badan 33 sanadood cidi hilibkumay qalin waa meeshaas qariban codsi ka yimi madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Cismaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ka codsaday shirkadda NIS oo ah shirkad foundation oo Soomaaliya oo dhan ka shaqeysa in saylada dayacan dadka laga qabtiro saasaan maanta Xudun nimi gobolka Sool waa ku faraxsanahay sida naloo soo dhaweeyay waa magaaladeedii waa magaalo deegaankeedii waa magaalo loo baahan yahay qof kasta wixii cilmi iyo aqli uu bartay inuu dib ugu soo noqdo deegaankii uu ka yimina wax ka qabto carqaladahaasana maanta nagu soo celiyay waana ku faraxsanahay inaanu nimi waana ku faraxsanahay inaanu dhagax dhignay waana ku mahadsantahay shirkadda NIS iyo dawladda Puntland mas'uuliyiintan ayaa uga sii gudbay deegaanka Lafweyne oo 30 kiiloomitir waqooyi ka xiga degmada Xudun waxa ayna kula kulmeen bulshada deegaanka iyaga oo ka dhageystay baahiyaha jira ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo hoyga sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa dadka deegaanka uga warbixiyay dadaalada socda ee lagu horumarinayo nolosha bulshada deegaankan Jaafar Macal Maxamed warbaahinta dawladda Garow